haddii la diido maxaa samaynaysiin ma dagaalamaysiin waxay la tahay haddaan dagaalamayno yalla waxaad aqli mi aniga ra'iisul wasaaraha la igu bedelo oo hal cayri haddii la rabo in aan dawladda la heshiiyo maalintii la doortay en qabiilka la yiraahdo habargidir waxay dawladda uga hor imaadeen annaga maxaa ra'iisul wasaaraha looga dhigi waayay oo looga dhigay mursade ra'iisul wasaare waa mid ay ku doodeen marba ni sheegi jiray maanta hadalkii uu soo baxay aan waliga ka hadli jiray fiqi wuxuu leeyahay mursade uma qalmaan waa langaab hawiye ugu yar mana dhici karto in ra'iisul wasaare ayaga laga dhigo waa mid ku andacoonaya ilmaha u sheer gareeya lifka hadda soo galay maxaa waxaan rabaa inaan runta ka hadla rabaa en mursade haddii maanta xilka laga cayr ra'iisul wasaaraha horta markii uu ra'iisul madaxda soo doortay ee ka soo jeedo muqdisho iyo hawiye waxay sameyn jireen markii ra'iisul wasaaraha daaroodka ku yiraahdo war wax ma xadeena ee wadanka waa dhisayna shaqa u qabanayna ra'iisul wasaaraha way cayrin jireen oo waxay dhigi jireen ra'iisul wasaarihi madaxweynaha isku dhacay ra'iisul wasaaruhu wuxuu rabaa in wadanka la dhiso oo lacagta wadanka lagu dhiso oo ciidanka la siiyo oo dadka lagu celiyo lacagtooda oo wax loogu qabto ninka mooryaanka ee hawiye ka soo jeeda ee muqdisho degan wuxuu leeyahay hadaad igu raacsanayn waan ku cayrinaya aniga maanta madaxweynihiya aniga maanta saltanadii u sarreysay haystay aniga wax laga maqlaya hadaa labadan isku dhacday mid waa inuu baxo madaxweynaha sinaba kuma bixi karo dastuurku wuxuu noo sheegaya haddii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku dhacaan inuu ra'iisul wasaaruhu baxo asaga fudud hadduu madaxweynuhu baxayo waxa la dhacaya dawladda dhan baa dubaysa baarlamaanka raacaya en wax hay'ad dhisnaanayso ma jiro soo waxa marba fududaa oo la cayrinaayo ra'iisul wasaaraha ayadoo la og yahay ninkan madaxweynaha ka ah Soomaaliya ee ka soo jeeda beesha hawiye inuu yahay mooryaan en laakiinse loogu danaynayo inaysan dawladda dhan burburin ayaa waxa loo diray ra'iisul wasaaraha ka qabanayay oo dhahay war tuugnimo marno lacagna ma qaadanayno maanta markii mooryaantii ay weyday in lacag la xado madaxweynaha cayrin waa ra'iisul wasaarihiisi waxay keenay inay yiraahdaan madaxweyne aniga igu bedel ra'iisul wasaaraha cayri haddii la cayriyo nin mursada ah ma waxaan ku bedelaynaa nin habar gidira maxay soo kordhinaysaa nin mursada la cayrinaya habar gidir baa soo mursada muxuu sameeynaya mucaaradkii buu naqanayaa qarxii buu sameeynaya dilkii buu sameeynaya taayiradii uu gubaya wuxuu sameeynaya mudaharaadiyada uu sameeynaya bartii wiilka habar gidir uu ka joogo muqdisho mooryaanimada soo kicinayay ayaa la soo kicinaya wiilka habar gidir sidee wuxuu ku qaadanayaa wiilka mursada xil loogu diidaya aqliga wax shaqeynaya ma daa waxa la isku sheegay ma tahay madaxweyne maanta wuxuu yiraahday aniga qof walba oo tala ii soo jeedinayo oo wanaagsan waan qaadanaya qofkii raba oo wax iga tabanayo talo ha ii soo jeediyo aniga waxaan kula taliyay madaxweynaha qof ku dhaama ma haysano qof ka wadanisan ma haysano qof ka aqoon badan ma haysano qof ka daacisan ma haysano qof ka islaamsan ma haysano qof ka hadalkaaban ma haysano qof ka wanaagsan ma haysano qof ka dambiyar ma haysano 21 sano wadada cad nagu wad baa ku dhaaniga taladan siiyay madaxweynaha u soo jeediyay aan u soo bandhigay taas bi ahayd fiqi oo maanta rabay inuu aniga ugu daydo oo wadadeedii raba inuu maro wuxuu ku jawaabaa noo daaraya madaxweyne en khayr cayri oo mursada waan ka deynayna mudaharaadka iyo habar gidir waan ka deynayna aniga ra'iisul wasaare iga dhig ee labada sano ay hartay labadeena meesha aan wada qabsano haddii maanta ra'iisul wasaare la cayriyo oo wadanka lagu badbaadinayo khayr ma kula tahay inuu fiqi wax soo kordhinayo fiqi wuxuu rabaa inuu xado lacagta fiqi wuxuu u dhimanaya inuu lacagta xado oo guriga weyn oo Talyaani ka dhistay Xashi Axmed guriga weyn oo ka dhistay Turkiga inuu kaasoo kale ka dhisto rabaa oo la tartamo wiilashii asay ka horeeyay ee mooryaanta ee lacagta dawladda iyo ummadda Soomaaliya dhacaysay taas u socdaa taas ma ogolaanayna Soomaaliya ma ogolaanayna in ra'iisul wasaaraha ugu aqliga badan ugu aqoonta badan ee ka soo jeeda Muqdisho inaa bedelo hadalka mooryaanka dhageysta bisha June haddii la diido maxaa samaynaysiin ma dagaalamaysiin waxay la tahay haddaan dagaalamayno haddaba maana nimaaneen halkaas waxaan door bidaynaa shirkaasi inuu ka dhaco magaalada Muqdisho hadduu ka dhici waayaan waxaan ku talagalaynaa meel kale oo dalka ka tirsan waana la ogyahay tabarta dawladdu ay leedahay iyo xayndaabka inta ay ka taliso meel kale oo dalka ka tirsan ayaa lagu qaban doonaa shirkaas markii Muqdisho ay suurtagali weydo maamul goboleed anaga ka nimid be dadka oo dhan maamul goboleedka ka yimaadeen meel kale ma cirka laga yimid
waa deegaanadeennii meesha rabnaan ku qabsan karnaayo kale hadday muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumadda cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqaynaysa ay ku fashilantay mandate-kii dadku loo xil saaray oo ay ahayd inay dalka gaarsiiso wixii laga hadlayo dastuurka oo dhammaystiran oo wuxuu ku leeyahay dawlad cusub ha la soo dhiso madaxweyne cusub ha la soo dhiso tan ha la bedelo intii la dhisaayo iyo lacagta ku baxayso 2 sano way ka badan tahay markaan ilaahay war dadkan waa mooryaaniin muqdisho degan inay wax isku qarxiyaan iyo inay wax biliqaystaan maahane ma ogolo dawlad wanaag ma ogolo waa laga diidaa dad baa caynaysa way leeyahay hawiya caynaysa way dhahaya war dadka hal bedelo ku leeyahay madaxweynaha hal bedelo madaxweynaha la soo dooranayo qarashka ku baxaya iyo waqti ku baxay 2 sano oo hadda dawladda socoto ba ka hawl yar 2 sano ee hadda socoto ba ka hawl yar intii 2 sano in la soo daaranayo la soo dhigi lahaa asaguna muxuu sii soo dooran ninka la soo doorto 2 years muxuu noqon doonaa lama oga waxa la soo dhiso muqdisho shir kuma qabsan kartaan ma kula tahay madaxweyne bannaan lagu soo doortay ee carta lagu soo doortay iyo imbikaadi inuu muqdisho imaan karo ma kula tahay dawlad ka dhisan tahay oo khayriin farmaajo joogaan oo amisan joogto muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumadda cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqaynaysa ay ku fashilantay mandate-kii oo maraykan safaaradda ay joogtay shalay ka cayrisay wiilkan buuran ee ka soo jeeday Puntland oo dha safaarad baan ugu taalay muqdisho Soomaaliya hadda u baahantiin safaarado Kenya u imaadeen Soomaaliya ka weydeen meel ku shiftaan safaarad hadda u baahantiin waxa la dhahay Nairobi mid Soomaaliya ka furan tii Kenya ugu talgal ka furan orda muqdisho dhulkiina aad lagu dhahay waa la cayrishay safaaradda maraykan baa laga cayriyay charterka maraykan ee maxaa la dhigay departmentiga maraykan ee arrimaha dibadda website-kiisa gala waa lagu soo qoray inay u imaadeen niman Soomaali ka socdo oo isku sheegay inay yihiin madax inay imaadeen safaaradda lagana celiyay gala aqli isku yeelo Soomaali wax soo warsanay deeqa sida aaminin website-ga oo maraykan iska leeyahay departmentiga maraykan ee arrimaha dibadda gal waa soo arkaysaa in laga cayriyay niman delegation oo Soomaali ka socday oo safaaradda imaaday Kenya oo soo habaabo garan waayay safaaradda maraykan ee Soomaali meesha ku taalay ma la hadli karaan Soomaali safaarad bay leedahay wixii Soomaali ka dhacaya haday isqabsi tahay haday dil tahay haday in wax la weydiisto safaarad baa Soomaali loo weydiiyay Kenya shaqo kuma laha mana qaban karto lamana kulmi karto nimanka inta fahmi waaye Cabdulle Aadan Gaas baa u aqoon badnaa nimanka maamul goboleedyada ninkaas u aqoon badnaa ninkaasna ma joogo maanta waxa uu aqoon badan maanta maamul goboleedyada waxa uu aqoon badan oo gudoomiye u ah waa ninkii al-shabaab ka ahaan jiray ee Jubbaland maanta madaxweynaha u ah Axmed Madoobe bay war ka dhigaysanay daba socdaan waa nin argagixisaan Maraykan way iska dul qaadanaysaa marta inuu ku soo boodo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka caalamka diidada inay ku kacaan way ogtahay inuu al-shabaab yahay tuugiya dadka qarxin jiray marta inay talaabo sharci ka qaato marto waxbay xiriirinaysaa laakiinse ninkaas oo maanta wuxuu u yahay idani wuxuu yahay aqoon-yahanka uu wax ku daydo oo asaga maanta daba socdo ninkaas ku dayanaya safaarad qaldan bay aadeen waxa la yiraahdaa maadreer waa qaldan tihiin oo dhulkiina ku noqon safaarad Maraykan hadda raadinaysaan Soomaaliya ku taala hadda madaxdiina la soo hadla oo safaaradda nigu furan aada waa dani ilaahay wax la yaabo wallahi wax la yaabo waxa ka dambeeyay oo warka uu sheegay waa fiqi iyo Cabdi Shakuur baa uu sheegay Nairobi aadina halkaas ku shireenaa safaaradda Maraykan baa la kulmeynaa Kenya aadina waxay maqlaysanayeen siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya markii Soomaali balay ka dhacdo waxay isku tagi jireen Kenya marka dawlad Soomaaliyeed ma jirin safaarad Maraykan ma jirin tii bay u malay in wali lagu jiro tii ay maanta u malay in wali lagu jiro dadkan waa dad jaahiliina waa dad ku fashilmay siyaasadda waa si daarana dhageysto wuxuu ku leeyahay 19 lagu qoraya maanta hadan eriga ku soo celiyay dawladda Soomaaliya waxa loo sheegay fiqi inuu Soomaali ku soo noqon karo xildhibaan walba yahay in la xiraayo waxay dawladda sidoo kale ay sheegtay caawa inaan shir lagu qaban doonin bataatan ba 2 sano soo socdo shir aan dawladda amarkeeda la wada inaan Muqdisho lagu qaban karin dawladda lagu soo dhisay Puntland ha imaado Muqdisho ninkii la dhahay waa la dooranay ha imaado Muqdisho taasi dawladda arkaysaa taas ayaa loo fadhiyaa fiqi
ninka wax ka dhageysanaayo oo sida wag dhageysta hadalkiisaan keen halkaas horta baashi ay ka rabatay marka xukuumadda hadda jirtaahay way ku fashilantay mandate-ka 15 jeer buu dhahay 30 second way ku fashilantay wuxuu ku leeyahay way isku qoslaan oo way isla shaqeystaan oo ayaga xulfasla miina isku dhacaan baartay is cunaan oo lacagta la dhaco wadanka uu muran galo meesha xash xamuud oo tuuga ma joogo maxaa u soo qabatay muqdisho 30 sano joogtay wadanka maada bixine maxaa u soo qabatay maamul muu dhistay wax muu sameysay maxaa lagu aamini karaa ruuxan bal fiirso u hadlaayo maanta waa u malaynaysaa inay halkaa ka soo baxdo daliil tiro badan xitaa aan loo jeedin laakiin talooyin wax ku oola oo dad odayaal ah professor ah oo wasiirre iyo xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay hadda xisbiga hogaaminaya dalka u naxaya xisbigooda magaciis annaga shicibkiiya xisbiyada waa kala dhaqanay xisbiga ma sheegayso magaciis xageeba xisbi ku yihiin yaa u ah gudoomiye xagee lagu soo doortay yaa caalami saartay yaa shahaadadiisii war waxaan mooryaanka dhal fiiriya war waxaan mooryaanta la isku keenay fiiriya war Soomaaliya mooryaan baa qabsatay war Soomaaliya dameero qabsaday dameero ayaa qabsaday in la dilay u baahan yihiin mooryaanta al-shabaab waa mooryaan al-shabaab waa fiqi al-shabaab waa Abdi Shuur waa Xashi Axmud al-shabaab waa in wadanka laga qabtaa dawladda Soomaaliya yeesa u ogolaan dadkan tuugada inay soo noqdaan wuxuu ku leeyahay 1991 ka lagu noqonaa baldageysta dadkiisu ma ogol yahay ma ogola aniga farmaajo u dhimanaya aniga farmaajo u dagaalamaya daarado ahaan baa ku difaacaya xitaa hadduu qaldaya hadduu aniga ay gadanayo iyo dhulka Soomaaliya farmaajo xor buu u yahay farmaajo hadduu aniga ay gadanayo iyo dhulka Soomaaliya xor buu u yahay annaga u saxiixnay annaga ku dooranay daarado ahaan buu ku joogaya kuna dhiman doona filla Soomaaliya 20 sano wadada adeerkay awowgay wadadiisu marsiinaya nina aqoon leh lama soo dooranayo waddanka aqoon buu u baahan yahay dad u taliyo u baahan yahay yaa maali jiray waxaan jirtay madax ka noqon jiray dadkan mooryaanimadii 1991 la bartay oo qarax iyo dil iyo dhac iyo kufsi iyo badari iyo dadka guryahooda lagu bartay madax ma lagu aamini karaa wamay in la isweydiiyo runta isku shay u baahan tahay mooryaan hadda tahay oo live ka soo gashay laba mooryaan baan ahay baan ahay deeqo iska daa dadkan mooryaanaha ku sheegine haddaysan mooryaanaha muxuu ku hadlayaa dawlad la soo doortay oo mandate-keedii 4 years ku leeyahay mandate baan dhisaynaa dawlad baan dhisaynaa mooryaan hadalkiisa miyuusan ahayn mooryaan maxaa u taqaanaa adiga wadadkan biyo maal bay soo laayeen oo Xashi Axmud hubkii uu u dhiibay habargidir biyo maal laaya dhulka ka qaata marko ka qaxiyo dhahay laaya waxaan dhacno war ha cunno ma ogolo qof inuu la noolaado fiqijiniga degan dhulka daarood ee ku nool sool oo 10 xabba hal habeen baa la liqara waliga ma maqasheen aan cadeeyaa lagu haystaa fiqijini baa la haystaa dhulka annaga ma maqasheen inay yihiin hawiyad dadku madarasayeen meesha kala nool dadku meel buu degan yahay afartan wiil ay gubatay ee baraxlay degan gaalgacyo degan oo qaraxu ka dhicin oo cadow kale u soo galin oo biyaha cabaan ay u soo daaran wiila daarooda biyaha cabaan dhaqtariinta lagu daaweeyo ee tahay kuwa Puntland markay islaayeen dhaawacooda la keeno ma dhahna dhul bay naga degan gaalgacyo naga degan yihiin hawiya gaalgacyo degan ee baraxlay degan ma dhahna dhulka unuka leh gaalgacyo unuka leh kamara hadallo waxa uu bixin